waxba uma arko shakiga baaxadda weyn ee qalbigaaga ku abuurmay taasoo u sabab ah in shaydaanka oo cadowga koowaad ee jacaylku uu kula dirsay waqti kasto oo ay ugu badato aamusnaantaada waxaan dib u celiyaa maskaxdayda oo mar waliba ku mashquuliyaa qisadii lama ilaawaanka ahayd ee ina dhex martay ugu dambaynna guusha ku dhammaatay taasoo noqotay tii aan kugu hantiyey ilbiriqsi naftayda ma oggolo la'aanta in dunidani ay ku xaragooto sababtoo ah waxaad i bartay macaanida nolosha ay leedahay naf waliba oo dunidan ku nool ilwaaday waxay leedahay rajo oo ay mar waliba ku sasabto nafteeda balse anigu ifafaalahan leeyahay waa adiga waxaanse mar waliba nafteyda ku madadaaliyaa ereyadii macaana ee mar kasta afkaaga ka soo bixi jiray goysmada hadalladaada ka macaan badnaa malabka waxay xanuun aan daawo lahayn ku noqonaysaa qalbigayga adiga daciifka ku ah ma og tahay qaali haddii aan maqlin codkaaga maalinka in aan ahay qof iska socda meesha loo jiheeyana aada waxaanse dareenku igu soo laabtaa marka aad si naxariis leh ugu dhawaaqdo magacayga waa hubaal in nafteydu aysan waxba ahayn adiga la'aantaada balse ay ka adag tahay jamalaha iyo buuraha dhagaxaanta ah marka aad i garab taagan tahay qof waliba oo dunidan joogo wehel ayuu u baahan yahay balse anigu wehelkaygu waa adiga dunidan aynu saarannahay inta aan ku noolnahay waa waqti kooban ma garan karayo waqtiga ay ajasheedu imaanayso balse waqti kasto waxaan raxmaan ka baryaa inaan nafbaxo aniga oo dhabtaada jannada ah ku jiifo dhoola caddaynaya gacantaada midigna ay madaxayga saaran tahay noloshu aad bay u macaan tahay markuu ku garab taagan yahay qof adiga oo kale ah dareemaya meesha ay cilladdu ka jirto garanaya halka uu dhibka kaa hayo xalna u helayo ugu dambayntii maanta ma ahan waxaan ku faanayo in ay tahay wax iska yeelyeel ah balse hadallada afkayga ka burqanaya waxay si toosa uga soo go'ayaan qalbigayga ma doonayo in dirdiraaluhu wakhti kasta ku guulaysto kala geynta lamaano annaga oo kale ah hadal u kala qaadidda laba dhiigoodu wada shaqeeyo kala fogaynta laba ku heshiiyey inta noloshooda ka dhiman balse waxaan rabaa doqonka wakhtiga gelinaya in ay kala dheeradaan mucaashaqiintaas in uu dareemo ciil iyo weliba catow in uu dareemo in aaminaaddu ay yaraatay in uu garto inuusan kala fogayn karin ul iyo diirkeed in uu garwaaqsado jacaylka awoodda uu leeyahay intaa oo idil waxaan uga guulaysan karnaa hal arrin oo aad ugu fudud sheegista afka balse ku dhaqankeedu uu aad u adag yahay ma taqaan shaygaas huunno waa kalsooni ka soo go'day kasha iyo laabta waxaan u malaynayaa in aan ku dheeraaday qeexidda halka aad iiga taallo rabbi macaan qaali ilwaad ka dheeroo wakhti kasta shayddaanka ku tusaya shakiyo mararka qaar run aad u malaynaysid iska durji shakhsiga aad maanta ku tuhmayso inuu ka kow yahay kala aamusnaanteenna waa hubaal indha u roneey in webigiinnu jacaylka aan dib ugu dabaalan doonno duubistan codkayga iyo murtida ka soo burqanaysa qalbigayga aniga keliya iskuma aanan talagelin balse waxaan ugu talagalay mucaashaqiinta ila dareemaya naxariista jacaylka macaanida ay qabto marka laysku kalsoonaado aad baan u jeclahay lamaano weliba oo dunidan joogo in wakhti kasto ay guul ku seexdaan kuna soo toosaan soomaalaay waa walaalkiin axmed kaarsho idin leh noolaada abid